halkani waa BBC oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efamyada magaalooyinka qaar taleefanka gacanta iyo barta internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan idil ahaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan. waa maalin Arbaca bisha 5 ay tahay 27 sanadku waa 2020 goorshoogtu waa 7 subaxnimo oo gowa. wararkaanu subaxa saaka idin haynana waxaa ugu mudan nin madow ah oo Mareykanka lagu dilay oo keentay shaqo ka eriyada saraakiil boolis ah. General Haftarkii Liibiya oo xaaladdu ku xun tahay mise og tahay korodhka tacadiyada ka dhexdhaca qoysaska tan iyo intii corona awgi guryaha lagu xandhimay. saddex nooc buu leeyahay gabdhood ku mid afka ah oo ah cay joogta ah yasid iyo ixtiraam la'aan qofka in ehelkiisa la caayo in lagu sheego waxyaabo bani'aadamnimadiisa wax u dhimaysa sida waad fool xun tahay waad gacan adag tahay waad uraysaa inta ma karin taqaanida caruur ma korin kartid waxyaabo sidaas tacadiyada corona uu ka dhexdhaliyay qoysaska si gaar ah inuu barnaamijka ugu eegi doona. ganacsato Soomaali oo Koonfur Afrika ku nool cuntooyin u qaybinaya dadka dalkaasi bandowga saameeyay iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ciyaarihiina kamid yihiin. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali, waxaan ahay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ee akhyaarey. subax wanaagsan. dhegeystayaal sida aad nooga barateen qodobadaas oo fidsanay weynoo dambeeyana aynu ku horreyno wararkii caalamka oo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo hoygiisa ku sugan inoo hayo. Cabdiraxmaan. mahadsanid Dhimbiil. khilaaf ayaa la sheegay inuu soo kala dhex galay Twitter iyo madaxweyne Trump kadib markii ay warbaahinta weyn ee baraha bulshada Twitter ay digniin u dirtay mid ka mid ah baraha Twitter-ku madaxweynaha leeyahay. nidaamka cusub ee u yaala Twitter ayaa wuxuu dhigayaa wararka marin habaabinta oo bogagga lagu soo daabaco in aan la ogolayn. Twitter ayaa akhristayaasha kula talisay inay helaan xaqiiqda ku saabsan codbixinta, halka uu Trump sheegay codbixinta boostada inay wax isdabamarin horseedi karto. madaxweyne Trump wuxuu Twitter uu ku eedeeyay inay xorriyadda hadalka caburinayso. 4 askari oo boolis oo ku sugan magaalada Minneapolis ee cariga Mareykanka ayaa shaqada laga eriyay kadib markii lagu helay muuqaal laga duubay dil loo geystay nin madow ah inay ku lug lahaayeen, waxaana la sheegay inay maqlayeen ninka madowga ah oo leh neefta ayaa dhibaysa. in ka badan 60 dal ayaa deeq dhaqaale oo dhan $5 bilyan u fidiyay muwaadiniinta Venezuela ee ku sugan wadamada dariska la ah dalkaasi. dadka Venezuela u dhashay oo ku sugan xerooyin ku yaala wadamada jaarka la ah dalkaasi ayaa lagu sheegay in ay gaadhayaan 5 milyan oo qof. booliska rabshadaha ka hortaga ee Hong Kong ayaa heegan la geliyay iyadoo laga cabsi qabo inay mudaharaadyo ballaadhan magaaladaasi ka dhacaan. dadka mudaharaadaya ayaa kasoo horjeeda sharciga Shiinaha uu ka dhaqangelin rabo Hong Kong ee dambiilaha ka dhigaya ciddii ku xadgudubta heesta astaanta qaran u ah dalka Shiinaha. ugu dambeyn, booliska Japan ayaa xabsiga u taxaabay in looga shakisan yahay in uu 36 qof uu Kyoto ku dilay bishii Julaay ee sanadkii hore. Shinji Aoba ayaa laga soo xiray isbitaal lagu dabiibayay kadib markii la xaqiijiyay inuu ka bogsaday gubasho ka soo gaartay weerarkaasi. booliskuna waxay sheegeen inuu ninkaasi qirtay inuu dilkaasi geystay. warkii idaacadda subaxnimo waa dhagintaan dib ugu celiyay Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil iyo stuudiyaheena. aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaaji Cadow ee dhegeystayaal u diyaar garoobay idaacaddeenii subaxnimo oo fidsan. aynu ku bilownay sidaad wararkaba ku maqlayseen. 4 ka mid ah booliiska Minnesota ayaa la eriyay kadib dhimashada nin madow ah oo ay qabteen isla markaana la arkay muuqaal la baahiyay isagoo mid ka mid ah bileysku ruugiisa tunka kaga hayo ka hor intii aanu dhiman. taliyaha bileyska Minneapolis ayaa sheegay 4 nin laga bilaabo hadda inay yihiin shaqaale hore. xogtii u dambeysay Cabdulqaadir Yuusuf Cali oo stuudiyaha igula sugan baa inoo haya. Cabdiqaadir. cabdiraxmaan waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal muujinayay ninkay askarta dileen oo lagu magacaabo George Floyd oo ku celcelinayo ma neefsan karo isagoo askari cadaan ah oo luqunta kaga taagnaa. dhacdadan ayaa waxaa xasaasi ka dhigay dhacdo kale oo sanadkii 2014 ka dhacday magaalada New York, taasi oo ay boolisku ku togtay nin madow ahaa oo la oran jiray Eric Garner. FBI-da ayaa sheegtay in ay baari doonaan dhacdadan ugu dambeysay ee ka dhacday Minneapolis. gudoomiyaha ururka xorriyadda madaniga ah ee gobolka Minnesota John Gordon oo BBC-da la hadlay ayaa ka falceliyay dhacdada, waxa uuna muuqaalka ku tilmaamay mid argagax leh oo xanuun badan. You can see him begging for his life
You can see him saying, I can't breathe. Waxa aad arkaysaa isagoo ka baryaya noloshiisii. Waxa aad arkaysaa isagoo leh ma neefsan karo in ka badan 9 jeer oo ku celcelinaya kana baryaya inaanay dilin. isla sidoo kale waxaad ka dhex arkaysaa muuqaalka isagoo lumiyey baraadkii isla mar ahaantaana si caadi ah aad u arkayso inuu dhintay. muuqaalkan oo soconaya cabdiraxmaan muddo 10 daqiiqo ah ayaa waxaa duubay qof goobjooga ahaa waxaana lagu arkayey ninka madowga ah ee la dilay oo dhulka jiifa oo odhanaya ha i dilin. goobjoogayaal ayaa askariga ku booriyey in uu jilibka ka qaado luqunta ninka madowga ah ee la dilay kaasi oo dhulka jiifay sababtoo ah waxay yidhaahdeen ma neefsan karin ama maba dhaqdhaqaaqi karinba. muuqaalka ayaa sidoo kale cabdiraxmaan muujinayey mid ka mid ah goobjoogayaasha oo odhanaya sanka ayaa dhiig ka socda. gelinkii dambe ee talaadada xiliga Minnesota booliska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday dibadbaxyaal kusoo ururay banaanka xarun booliis oo ku taala Minneapolis. waa sida ay sheegeen warbaahinta gudaha ee halkaasi. aad u mahadsan yahay Cabdulqaadir Yuusuf Cali warbixintaasina la socodsiinay. bal haatan haddii aynu kusii soconno warbixinaha kale aanu subaxan saaka idinku hayno idaacadeena subaxnimo. magaalada gaalkacyo duleedkeeda waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay laba beelood oo wada dega. odayaasha labada dhinac culimada iyo siyaasiyiinta dhinacyadaas oo kasoo kala jeeda galmudug iyo puntland ayaa hadda wada dadaalo beelahaas lagu dhex dhigaya nabad waarta waxaanay soo saareen heshiis hordhaca. nabadoon cabdinaasir cali cashuur waxa uu ka mid yahay nabadoonada galmudug ee dadaaladaas qaybta ka wuxuu u waramay waxyaabaha ay ku heshiiyeen iyo bal halka xaalmar iyo xasan sheekh cumar. dad beelaha walaalaha oo qaybna galmudug ka tirsan tahay qaybna puntland ka tirsantaho walaalaha darisa oo isku ceel iyo isku degaan iyo isku walaalaha waxaa dhex maray shaqaaqooyin. dadkaas hor bay wax u qaybsan jireen shaqaaqooyinka ka hor waxbay wadaagi jireen wixii dhaca waa laga daba tegi jiray mag baa la kala qaadan jiray. haddana waxaa soo laalaabtay shaqaaqooyinkii oo aad u xoogeystay. shaqaaqooyinkii marka hadda waa lagu soo baxay odayaasha dhaqanka islaamada suldaamada wixii beelaha siyaasiyiin oo beelaha ka dhashay ilaa heel federaal ilaa heel maamul goboleed baa ku soo baxay. waayahay dadaaladaasi dhinacyada kala duwan ay ka qayb galeen hadda maxaa ka soo baxay oo aad nala wadaagi kartaa? waxaa heshiis lagu gaaray xabad joojin marka koowaad. marka labaad waxaa lagu gaaray heshiiska labaad ciidamada in la kala qaado. marka saddexaadna waxaa lagu gaaray salmugi inta loo fadhiisto shaqaaqooyinkaas in la kala guro oo nadaafka iyo sidii hore lagu dhaqi jiray lagu dhaqo lagu kala guro. wixii wax iskula la kala siiyo meesha dad baa ku dhintay dhaawac baa dhacay in la kala qaato mag iyo qof walba xaqiisii qaato. heshiis aad u muhiima oo miro dhalana la gaaro dadkoo walaalnimadiisii sharaftiisii iyo darisnimadiisii ku wada noolaada intaas baa laisku afgar. isku dhacyadaani marka maxay salka ku hayaan oo ay ka bilowdeen markii hore? waxay ka bilowdeen shaqaaqooyin dhacay iyo dilal dhacay bay ka bilowdeen. waa iska dareemi karnaa oo dee aargoosi qabiil ku jira waana ka daba tagno oo dee 24 saac inaan xakamayno oo ka daba tagno aan wixii wax dambe ka daba dhicin baan isku taxalluujinaa. haddana iyadii baan salka u dhignay. waxaan u malaynaa idanka ilaahay haddana inaysan nagu soo laaban ilaa dee waxa weeye wax laga gaaro. nabaduna waxaan rabnaa aad iyo aad baan qof walba oo muslima ama bini'aadanka dhan nabadda aad buu u danaynahayaa nabaddu ku nool yahay. waxaad ka mid tahay odayaasha deegaanka ee shaqaaqadu ay ka dhacday haddana waxaad igala hadlaysaa halka ay ka socoto nabadaynta iyo dabcan dadaalada loogu jiro in labadaasi beelood la dhex dhigo nabad waarta. marka maxaad ku xaqiijin kartaan in xabad joojintan aad ku heshiiseen ee hordhaca ah iyo waxyaabahan aad nabadda ku raadinaysaan in sidii loogu talagalay ee lagu heshiiyey loo fulinayo? waxaa lagu xaqiijin karaa horta inaan wuxuu soo laaban ilaahay xaggiisay ku xiran tahay hawl rabbi weeye taas. laakiin bini'aadnimada waxaan rabnaa inaan ku dadaalno markaas kabacdii warbaahiyooyinka iyo bbcda iyo miidiyaha inaan sheegno waxa aan ku heshiinay. waxa lagu dadka walaala lagu dhexdhexaashay qodobo adagna in laga soo saaro oo tilaabo sharciya laga soo saaro oo ciddii ku xadgudubta dee waxa weeye wax meel la wada dhigay lagu fuliyo oo loo isticmaalo in qodob qaban kara ciddii ku xadgudubta lagu heshiiyo. awooddii fulin lahayna maamulada waxay yidhaahdeen waa idinku garab siinaynaa. qodobadan aad hadda soo saarteen waa kuwo hordhaca shirna waad u ballansan tihiin. shirkaasi waxaa harsan ee looga hadlayo maxay yihiin? shirkaas waxaa la cilaamiyey markii ilaahay ka dhiguu noqonayaa laakiin dib baan ka soo sheegi doonaa xilliga uu dhacahayo. laakiin waxaa ka soo qaybgelahaya salaadiinta waasyada suldaamada dhaqanka maamulada kala gedisa ilaa heer gobol iyo heer federaal ilaa labada maamul goboleed iyo dowladda federaalka waxa ay nagu caawiso oo laakiin xaqiiqdan waxay u taallaa labada maamul goboleed
iyo suldaamada iyo dhaqanka beelaha intaasay u taallaa oo kolley ka wada hadli doona weelku waxaa la gunku ka tolmaa waxaa dadka hawshaas u taallaa dhaqanka iyo maamul goboleedyada dadka ka soo jeeda oo dee siyaasiyiinta ama xildhibaanada ah buu hawshaas ayagaa budhig u ah in mira ka soo baxaana aad baan ugu hanweyn xabajoojintan aad hadda ku dhawaaqdeen ee ka mid a qodobadan aad soo saarteen ilaa iyo goorma ayay soconaysaa xabadda sida aan ugu dhawaaqnay u joojinay bay u xiran tahayba saasaa xabadda horta ku dhimato ku aaqiratay kaasi waxau ahaa nabadoon cabdinaasir cali cashuur oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka gaalkacyo gaar ahaan dhinaca galmudug oo u warramayay xasan sheekh cumar dhinaca kalena cabdulaahi siciid ismaaciil kaytoon waxa uu ka mid yahay nabadoonnada puntland ee qaybta ka ah xalinta colaadda beelahan duleedka gaalkacyo isku haystay muddooyinkii u dambeeyey isla xasan sheekh cumar ayuu isna ugu warramay hirgelinta heshiiskan iyo bal waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore ehelkaas wax kala gaareen markay dhib badan dareemeen ilaahayna uu caqligoodii iyo maskaxdoodii siiyey waxaan isku afgarannay inaanu nabad ka samayno dhexdayada xabad joojin iyo nabadgelyo buuxdaan wada qaadanay wixii xisaabtana oo dadkaa ku kala maqanna waxaanu ku ballannay in aanu isku nimaadno muddo maalmahan soo socda waxaan kala qaadnay ciidamadii waxaanu kala geysanay jihooyinkii kala duwanaa ay kala joogeen waxaanu dhamaysanay in nabad iyo walaalnimadii aan dib usoo celino ayadaan ka heshiinay waxaanan ku ballansannahay inta dhiman inaan dhammaystirno maalmahan soo socota ma garata isku dhacyadan u dhexeeya beelahan waa arrimo soo laalaabtay oo intaa xal laga gaaray ayay haddana marar kale dabcan dhaceen hadda dadaaladan aad wadaan ee aad xalka ku raadinaysaan odayaashiina labada dhinac maxay kaga duwan yihiin dadaaladii hore horta marka hore dadku waa dad dhibta aad iyo aad u dareemaya deris ah islaam ah oo walaala ah meel ku wada nool dhammaantood kan qoriga ridaya iyo kan shiikha iyo kan odaga ah waxay dareemayaan dhibta qof walba way saamaynaysaa dhibtaas faraha badan kadib ee dhammaantayo sidaasaan isla qaadanay mana rajaynayno inay soo noqdaan waxaan wax ka bilowdaanna waxa weeyaan wax horey u dhacay dabagalkood oo aan horey loo dhamaystirin laakiin maantay qorshahayga waxa weeye inaanu dhammaan arrintaa geesaha ka istaagno waxaa ka qayb qaatay oo maanta ay shirarkii hore kaga duwan tahay haddaan kuu sheego xasanow waxaa ka qayb galay kuwankan galmudug waxay ka ahayd goobjoog iyagoo dhinaceeda qabanqaabo weyn ka gashay puntland sidaas si la-eg waxay ka ahayd goobjoog oo dad matalaya oo mas-uuliina joogay waxaan aad iyo aad iyaguna ka qayb qaatay xildhibaanada federaalka ee gobolka muqdisho khaasatan labadan beelood sidaa la ajligeed maantay waa maalin la isku yimid oo la wada gaaray markhaatina laga wada yahay heshiis buuxa iyo nabadgelyo buuxda iyo xabad joojin buuxda aan kala qaadanay sidaasaa moodaa inay kaga duwan tahay siyaabihii hore oo dhan ma garta maadaama nabadoonnada iyo odayaashu ay qayb weyn ku leeyihiin in xal laga gaaro arrintan marka laga soo tago maamulada iyo dowladda dhexe ma jirtaa odayaashiina wax damaanad ah oo dabcan dhinacyadiinnu aad gaarteen oo ku saabsan in dagaalkan iyo xabaddan iyo colaaddaani aanay dib u soo laaban damaanada waxaa ah dadku markay islaam yihiin oo la isku yimaado oo culimadii joogto oo dhaqankii joogo oo taliyaashii ciidamadu joogaan waxa lagu ballamo wax shaqaynaya weeye marka sidaasaa waxaa ah damaanad midda labaad daday maanta iskugu hor tahay inay kulmaan ama heshiiyaan manihin ama ballamaan waxaanu nahay dad wakti fara badan isku imaanayay waxna ka dhexeeyeen heshiinayey nabadgelyo kuwooda noolaanayey dhex marayey haddana dhibka dhaca ka heshiinaya ma garat laakiin weli maleeshiyaadkii beelaha hubka dhigis laguma samaynin oo hubkii way haystaan marka soo suurtagal ma noqon karto in mar kale ay dagaalla dib u bilowdaan marka hore shar oo dhan ilaahay subxaana watacaala baan ka magan gelaynaa xaajo walbana waxaan ka eegaynaa dhinaca wanaagsan baan ka eegaynaa wiilka maleesiyaanka oo qoriga haysta wuxuu leeyahay shiikh wuxuu leeyahay taliye wuxuu leeyahay oday wuxuu leeyahay cid uu ka dambeeyo oo ka qabanaysa khaladka taas iyadoo ay jirto ayaa haddana waxaa maanta ay ka duwanaanaysaa saddexdaas qolo oo isku timid saddex qolo markaan kuleeyahay maamul waa puntland iyo galmudug iyo dowladda federaalka ahi waxaa la isla qaatay ama la isla qaadan doonaa barnaamijkan inuusan dib dambe u dhicin oo waxaa soo bixi doonta qorsho nabadgelyada lagu sugayo oo dadka u dhaxayn doonto oo aanu ku midoobi doono labadeeda eetaamin ee walaalaha ah iyo maxaanku yidhahdaa labada maamul iyo dowladda dhexe aan ku midoobi doono halkaa waxaa ka soo bixi doonta barnaamij sistamka nabadgelyo waarto ay ku imaan karto kaasi waxau ahaa cabdulaahi siciid ismaaciil oo u warramayay xasan sheekh cumar kana mid ah nabadoonnada puntland oo qayb ka dadaalada lagu nabadaynayo beelaha wadadega gaalkacaya muddooyinkii u dambeeyey dagaaladu ay dhex marayeen dhegaystayaal weli halkaad nagala socotaan waa b b c xilli goorsheegtu tahay 2 iyo waxaan ka wadaa 7 iyo 15 daqiiqo BBC
BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. haatanna boqolaal ka tirsan calooshood u shaqaystayaasha Ruushka ee ka garab dagaalamaya Generaal Khalifa Haftar ayaa isaga baxay aagga dagaalka ee koonfurta Tripoli sida ay wakaaladda wararka ee FP ka soo xigatay xoogagga dawladdu ay qaramada midoobay taageersan tahay. haddaba bal waxaynu eegaynaa mustaqbalka Generaal Haftar iyo guud ahaan xaalka Liibiya waxa laga filan karo maadaama ciddii ugu cuslayd ee generaalkaasi taageeraysay ay garabkiisa baneeyeen maanta. Axmed Tiir ciidamadan waa ciidamo calooshood u shaqaystayaal oo bankan la yiraahdo company la yiraahdo sida companyga Blackwater oo kale Mareykanka u leeyahay waa company ciidamo hore Ruushka iyo Soviyetka dhihi jiray ay nimana ay leeyihiin meelaha adduunka xasaradaha ka jira loo kiraysto kadibna u soo dagaalamo lacag ku shaqeeyo marka ciidamo saas ayaa waxaa soo kiraystay Haftar oo la yimid badigana meelaha hadda ay ka dagaalamaan Suuriya kamid ah qaacidada Xumeyniin la yiraahdo dadka jooga ay kamid yihiin marka waxaa ka jira marka meesha ayaa laga soo qaaday halkan ay marka Tripoli iyo inay qabtaan ayaa loo keenay la socoto way soo dhaweeyeen oo sanadkii hore waxay ku gaaray bishii afraad inuu qaban doono magaalada Tripoli dagaal weyn ayaa ka dhacay kadibna waxaa ka dhacay marka khilaaf weyn ayaa dhaxdooda ka dhacay ayay Haftar saas ay marka ku guuldareysteen oo hadda ay soo baxayaan ay ka mid sababta ay u baxeen maxay tahay marka laba sabab u baxeen koow lacagihii loo ballan qaaday oo Haftar siinin waa midda koowaad taana waxay keentay dad waxay ahaayeen dadkan contractors oo lacag doon ah lacagtii sidii la rabay hadii loo bixin waayo dhib ayaa ka imaanayo oo ayaga markaas waxay meesha u joogayeen male midda labaad wuxuu diiday Haftar inuu ka qayb geliyo siyaasadaha kore ee dagaalka oo wuxuu asaga ayaa go'aamada idil gaaray waayo saada socota Haftar waa nin dictator ah ra'yi iyo wada hadalna cid kale lama wadaago marka waxay dareemeen inay lacagtoodiina meesha aynan sihiraynin ay qandaraaska ay kusoo galeen tan labaadna in ay talada wax fiican ay ku lahayn saas daraadeed ay marka go-aan u gaareen inay u baxaan iyo daradan hadda kasoo timid markuu Turkiga meesha soo galay Haftar waxaynu ognahay inuu in badan u halgamayay qabsashada Liibiya oo dhan siiba gaar ahaan caasimaddu rabay inuu imka qabsado maadaama ragga saa u culus ee caawinaya meeshii ka baxeen halgankiisii maxay ka saameynaysaa Liibiya horta waa sida Soomaaliya oo kale waa qabiilooyin ayuu intaan la lahay kacansaar hadda waxaad moodaa mantiqadan la yiraahdo galbeedka Liibiya in uu ka soo gacmalaabtay oo qabaa'ilkii iyo dadkii deganay ay dawladda gacansaar la yeerteen magaalada Tarhuuna ayaa ku hartay oo ayana la filayo waqti aan dheerayn in ciidamadiisa laga qabsan doono iyo Bani Wali waxaa weli taageero uu ka yara haystaa dhankan bariga iyo Benghazi dhinaceeda dhankaana waxaa la rajaynaa mar hadduu yimid jabkan aad u weyn oo ciidamada dhinaca yimid ayagana inay kacdoomo samayn doonaan ay iska qaban doonaan isaga iyo dhaqsadiiba waxaa iskhilaafay baarlamaankii waa isaga sheegi jiray oo Tobruk joogay oo Caqiil Saar ninkii la dhihi jiray asaga hadda soo jeediyey wadahadal iyo hab cusub in wax loo bedelo Haftar hadda ka tilaabsaday Haftar wuxuu isii dilay maalinta markuu isu magacaabay xaakimka askariga ee wadanka Liibiya adduunka idin marka waxaa ka muuqatay ninkaas inuu ahayn nin dimuqraadi iyo doorashooyin u socday rabo nin xoog inuu Liibiya ku qabsado Liibiyana meel xoog lagu qabsado karamaho waa wadan burburayna nin xoog ku wada mari kara inuu jirin waa la wada maadaama xaal sidaa yahay mustaqbalka marka maxaa laga fili karaa dagaalkii uu ku jiray iyo doonistiisii Haftar siyaasi ahaan waa u dhamaatiisaan filayo waayo Haftar awood askari ayuu rabay inuu wax ku helo tiina way suurtageli wayso waxaa suurtageli joojiyey Turkiga oo badbaadiyey dawladii Sarraj ninka la yiraahdo ra'iisul wasaaraha adduunku ixtiraafsan yahay barlamaankii Tobruk joogay na wuu ka go'ay hadda sida muuqato wuxuu rabaa waan inuu la galo dawladan Liibiya ee Tripoli ka dhistay Haftar marka dhaxda ayuu ku meeraysanaya nafta ma lagu soo celin karaa iyo maya ayaa wuxuu ka jiraa wada hadal laakiin xoog dambena ma uu soo aadi karo hadda hawada idil waa laga haystaa xoolo badanna marka ma uu heli doono hadda wixii ka dambeeyo qolyihii maalgashan jiray waxaad moodaa inay niyo jabaayeen ay kolaba Liibiyada cusub ay wax la qabsan doonaan marka mustaqbal fiican oo Haftar leeyahay iima muuqdo hadda ani
kaasi waxa uu ahaa axmed tiir oo inoo falanqaynayey hawsha ku aadan genaraal xaftar oo xaaladiisu ay aad u daran tahay maadaama ay ka baxeen ciddii ila ahayd gaadhkiisa ugu badan oo ahaa calooshadu shaqaystayaal raashiyaana oo liibiya ku sugnaa qodobkaa waxay ka yidhaahdeen qaar ka mid a dhegaystayaasheennu faarax maxamed caydiid oo hargeysa joogaa wuxuu yidhi genaraal xaftarka liibiya ee xaaladaasi aad ku xun tahay runtii waan soo dhoweynayaa buu yihi maxaa yeelay haddii isaga iyo xulafadiisu meesha ka baxaan waxaa soo baxaysa buu yihi xaalad xukuumad tribolia oo sideedii ku soo noqon doonta kuwaas waxaa ahayn qaar ka mid a dhegaystayaasheenna haddii aynu kusii soconno dhanka iyo wararka kale idaacaddeena subaxnimona jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkan koonfur afrika ayaa wada qorshe ay ku caawinayaan dadka danyartaa inta lagu guda jiro xayiraadaha dalkaasi lagu soo rogay koronawgii inkastoo soomaalidu la kulmayaan weeraro ay ka mid yihiin ajaanib nacayb haddana ganacsatada soomaalida ayaa isku dayaya inay sawirkaasi si kale u bedelaan faadime taxadar yuusuf ayaa warbixintan inooga diyaarisay isxilqaam ay sameeyeen ganacsatada soomaalida ee ku nool dalka koonfur afrika waxay kaalmooyin ay ku jiraan cunooyinka daruuriga ay gaadhsiiyeen ku dhowaad qoysas gaadhaya 6,000 iyagoona ay qayb ka yihiin qoysas u dhashay dalkaasi kuwaasi oo tiradoodu tahay 600 oo qoys oo ku nool degmada 6aad ee magaalada Cape Town macaawinooyinkan ayaa yimi kadib markii qoysaska garab raratada ahi uu saameeyey lockdownka dalkaasi uu sababay xanuunka safmarka ee covid-19 sheekadan oo laga yaabo in dadka qaar ay wax iska weydiinayaan sida ay soomaalidu ugu dhiiratay iyo waxa ku dhaliyay ayaan wax ka weydiiyey ganacsade axmed saalax maxamed oo ka mid ah ganacsatada iyagu iskood iskugu abaabulay barnaamijkan ee dadka taagta daran loogu gargaarayo waddanka waxaa jiray dad ayaga xoogsata oo maalintii waxay soo dhacsadaan ayaga ku maarin jiray noloshooda marka maadaama uu lockdown jiro dadkaasi uma suuragelin inay baxaan ama shaqaystaan waayo guryahooday joogaan sidaa daraaddeed ayaan annagu marka isu xilqaanay oo aan dadkaas si aadan wax u gaarsiin lahayn aan maxaan ku ihahdaa isku tacalluujin waxaa ka mid a bariiskii burkii sokortii saliiddii iyo cabbitaankii iyo budadii soorta ahayd qudaarna way ku jirtaa marka qoys walbaba intaas ayaan guddoonsiinay oo isku xiran oo hal meel ku jirta qarashka meeshaasi noogaga baxay wuxuu gaarayaa ilaa 160,000 oo ran oo lacagta South Africaanka haddii dollar ahaan loo dhigana ay gaarayso ilaa 8,000 oo dollar haddaba dadka dalkaasi u dhashay sidee ayay u arkaan taakuladan ay siinayaan ganacsatada soomaalida ee halkaasi ku nool gudoomiyaha degmada 6aad ee Simpewe Nakayanza ayaa mar uu la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxa uu sheegay in bulshada ay Soomaalidu gargaar ka gaarsiiyeen ay si weyn ugu farxeen falkaasi bini'aadanimada leh. The relationship between ourselves and the Somalian community is always a warm relationship. xiriirkan la leenahay qowmiyadda Soomaalida ayaa mar kasta ah mid diiran hase yeeshee waxaa dhowaan naga yaabiyey bini'aadanimada heerka sarreysa ee ay noo muujiyeen markii ay dadkeena baahan ee uu bandowga saameeyey ugu deeqeen cunno badan marka bulshadeenna aad ay ugu faraxday tallaabadaasi iyo gacanta loo fidiyey xilligan adag. tanisee ma tahay mid ka qayb qaadan karta isdhexgalka bulshooyinka laga yaabo inay qaarkood kala tirsanayaan hagardaamooyin ku salaysan isirnacayb maxayse uga dhigan tahay soomaalida dalkaasi ku nool waxaa arrintaasi ka jawaabaya gudoomiyaha jaaliyadda dalkaasi koonfur afrika caamir sheekh xuseen. walaal waxay wax badan ka bedeshay fikrado qaldan oo nalaga haystay waxay kor u qaaday sumcadda iyo magaca jaaliyadda Soomaaliyeed iyo ganacsatadeena waxay ficiladan wanaagsan ee bogaadinta mudan ee ganacsatadeenu sameeyeen ay u horseeday dad badan oo dalkani u dhashay inay diinta islaamka qaataan waxaa sidoo kale jaraa'idada dalka ka soo baxa iyo kuwa caalamkaba qabsaday sidii jaaliyaddeena uga ficil aad bay u mahadsantahay faadimo warbixintaasina la socodsiinaysay haatan tan iyo markii u dilaacay cudurka safmarka corona waxaa sii baahayay sida lasoo tabinayo tacadiyada ka dhex dhaca qoysaska ay kulmiyeen xaaladaha bandow haddaba warbixin arrintaas ku saabsan oo ingiriiska ka soo diray mawliid xaaji cabdi ayaynu ku eegi doonaa. hay-adaha dowladda Britain u qaabilsan ka hortagga tacadiyada ama gaboodfallada qoysaska ayaa sheegay faralkaasi ay kordheen 49% halka ay labalaab noqdeen ficilada dilka iyadoo 3 toddobaad ee ugu horeeyay markii lagu soo rogay dalkani xayiraadaha ay dhaceen 16 dil taasi oo ahayd tiradii ugu badnayd muddo 12 sano ah sida laga soo xigtay cilmi baarayaasha hay'adda Counting Dead Women Project dadkaasi ayaa ahaa 14 haweena iyo 2 caruur
dr warsan cismaan saalax waa dhakhtar caafimaadka maanka waxay marka hore sharaxaysaa noocyada ay ka kooban yihiin gaboodfallada qoyska. gaboodfalka dambiyada iyo xadgudubyada uu qofku ka galo qoyskiisa ragga u badan laakiin dumarkuba way ku dhaqaaqaan. waxaa ka mid ah 3 nooc buu leeyahay gaboodfalku. mid afka ah oo ah cay joogto ah yasid iyo ixtiraam la-aan, qofka in ehelkiisa la caayo, in lagu sheego waxyaabo baniaadamnimadiisa wax u dhimaysa sida waad foolxun tahay, waad gacan adag tahay, waad uraysaa, cunto ma karin taqaanida, caruur ma korin kartid, waxyaaba sidaasa. gaboodfalka labaadna waxa weeyaan mid galmada khuseeya, in lagu qasbo qofka galmo waqti uuna rabin ama wax laga dalbado sharcigaba waafaqsanayn. ka saddexaadna waxa weeyaan mid gacan ula tag ah. intaasiba dhaawac bay baniaadamka ku reebtaa oo ay wax u dhimayso kalsoonidiisa, gelinayso cabsi saa'id ah ama ay hurdadiisa khalkhal ku ridayso. waxa ugu weyn nafsiyan ah waxa weeyaan cudur la yiraahdo post traumatic stress disorder oo ama Soomaali hadii lagu turjumo ah walaaca ka dhasha argagaxa. calaamadaha lagu gartaana waxa weeyaan qarow badan, cabsi badan iyo inuu sidii filan uu arko qofka isagoo ama dhaawac jirka lagu sameynayo ama nafsi ah. taliska booliiska Britain ayaa sheegay in maalmihii ugu horeeyay ee bilowga xayiraadaha COVID-19 ay xabsiga u taxaabayeen maalintii 100 qof kuwaasi oo ku lug lahaa falal gaboodfallada qoyska. waxaana 6 toddobaad ee ugu horeeyay xanibaada coronaviruska booliisku ay xireen in ka badan 4,000 oo qof. haddaba maxaa sababa tacadiyada qoysaska ka dhex dhaca? waa tan mar kale dr warsan. mawlido walaal waxa sababa waxay u badan tahay qofka gaboodfalka ku dhaqaaqaya inuu isagu dambiga leeyahay, uu ciil badan uu qabo, ama uu ku soo koray guri la isku dilayo, ama uuba aqoonba in xadgudubyadaasi uuna xaq qofku u lahayn. waxaa laga yaabaa inuu qofka awood u sheeganayo oo qofku dumarka ah ama qofka ninka ah laftarkiisaba uu ku tiirsan yahay dhinaca dhaqaalaha, uu magaalo cusub joogo ama uuba dad lahayn. waxaa laga yaabaa inuu qofka kale ka dhaadhiciyo inuu isagu mar walba dambiga leeyahay, uu ka keenayo xanaaqan, inuu jacayl saa'ida u qabo, uu yaqaana qofkaasi sida maskaxda qofka looga qabsado. dhanka bulshada Soomaalida, hogaamiyaasha jaaliyadaha ayaa sheegay inay soo gaareen fariimo kala duwan oo ku aadana dhibaatooyin ka dhex dhacay qoysaska kuwaasi oo lagu soo wargeliyay. 6 bishii hore Xuseen Cigaal oo 65 jir ah ayaa lagu eedeeyay inuu ku dilay waqooyiga London xaaskiisii oo lagu magacaabi jiray Maryan Ismaaciil oo 57 sano jir ahayd sida laga soo xigtay booliiska. Baasi Basuuri oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed wuxuu dhawaan qoray buug ku saabsan guurka, waxaana fariimo kooban oo wacyigelin ah oo ku saabsan guurka iyo nolosha guriga uu bulshada ugu gudbiyaa baraha bulshada. waxaan weydiinay waxyaabaha xalka u ah gaboodfallada qoysaska ka dhex dhaca. runtii xalka wuxuu ku jiraa in guryaheena aan shidaal uga dhigno jacaylka iyo ixtiraamka. waxaa la yidhaahdaa shidaalka xaaska ama dumarka waa jacaylka, shidaalka ninkana waa ixtiraamka inuu ka helo ixtiraam xaaskiisa, shidaalka caruurtana waxaa la yidhaahdaa inay arkaan aabbi iyo hooyo isjecel. aad buu mahadsan yahay mawlido warbixintaasi inoo diyaariyey. dhanka ciyaaraha haddaynu eegno Bayern Munich Borussia Dortmund Bayern baa gool ku badisay. ciyaarteenu ismaxnimana intaas baynu ku soo afmeeraynaa ee maalintu ha idin samaato.